agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa maanta furay shirka ay ku kulmaan guddiga farsamo ee istaatistikada dalka oo ka kooban agaasimayaasha waaxaha qorsheynta iyo istaatistikada ee wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda oo ay hogaaminayso waaxda dhexe ee istaatistikada ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. Shirkani oo la qabto 6 biloodba hal mar ayaa waxaa lagu soo bandhigaa xogaha muhiimka ah ee dalka iyo sidii loo wadaagi lahaa xogahaasi si loogu saleeyo qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliland. Intii uu shirkani socday waxaa lagu soo bandhigay xogo muhiim ah oo ay soo bandhigeen wasaaradaha iyo hay'adaha dowladdu. xogahaasi oo ka hadlay heerka ay taagan yihiin xogaha kala duwan ee wasaaradahaasi iyo hay'adahaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mubarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir ayaa shirkani si rasmi ah u daafuray waxaana agaasimuhu ka hadlay muhiimadda iyo ujeedada shirkani. shirkanaynu maanta isugu nimi oo maxay ahaydeen ku magacaawno Statistics Working Group ama guddiga statistics-ka ee dalka heer farsamo runtii ujeedada inuu isugu nimaadnaa waxa weeyaan muddadiiba mar baynu isu nimaadnaa sanadkii 2 jeer muxuu ahaa ayaynu inta badan isu nimaadnaa waxaynu kaga wada hadalnaa maadaama aynu nahay dadkii ka mas'uulka ahaa soo saarista xogta ilaalinta tayada xogta gudbinta xogta iyo isticmaalka xogta intaba waxa laga maarmaana marka inaynu xog wadaagno waxa laga maarmaana inaynu share garayno oo wadaagno muddadiiba maxaa muhiim ah in laga wada hadlo ee dhinaca xogta ah maxay yihiin challenges-ka loo baahan yahay ama caqabadaha loo baahan yahay in wax laga qabto maxay yihiin casharadaynu ka baranayno muddadii aynu soo shaqaynaynay ee u dhaxaysay shirkan iyo muxuu ahaa shirkii ka horreeyay maxaa cusub ee aynu tahay inaynu soo kordhino ee waxa weeyaan mataqaanaa aynu ku kordhinaynaa shaqadii aynu haynay marka maanta waxaynu u wada joognaa runtii in Central Statistics Department ama waaxda dhexe statistikada wasaaradda qorsheynta ay idin la wadaagto wixii muxuu ahaa cusub hadday noqonayso xagga soo saarista xogta hadday noqonayso xagga isku dubaridka iyo muxuu ahaa isku xidhnaanta hadday noqonayso xagga ethics-ka iyo maartay akhlaaqiyadka looga baahan yahay cidda xog ururinaysa ama xog soo saaraysa hadday noqonayso sida xogta tayadeeda loo ilaalinayo hadday noqonayso xogta sidee loo isticmaalaya loogu go'aan qaadanaya waxaynu kala u baahanahay inaynu dul istaagno oo aynu isla fahanno hay'adaha dawladda halkan fadhiya maxay xog soo saaraan bal inaynu taana dul istaagno waxa laga yaabaa in marar badan fahankeenu noqdo wasaaradda qorsheyntu baa xog laga sugayaayo muxuu ahaa xog mataqaanaa soo saarta laakiin hay'ad dawladeed oo kastoo halkan fadhida xog bay soo saartaa haddii aanay iminka soo saarinna waxay tahay inay soo saarto marka waxaynu u baahnay inaynu dul istaagno oo bal hay'ad kastoo dawladeed ay xogtaad soo saartay lagaga baahay maxay tahay iyo halkee bay maanta taagantahay muxuu ahaa xogtaasi iyo sidee baynu markaa u horumarinaynaa wax uga qabanaynaa ay tahay markaa inaynu dul istaagno marka dee soo dhawaada aad iyo aad baa mahadsantiin waa shirkeenna caadiga ahaa ee sanadlaha ahaa ama 6 biloodlaha ahaa baan u jeedaa marka shirku waa inoo furan yahay iyana hadii ilaahay ka dhigo fakirka iyo dhaliisha iyo muxuu ahaa istoosinta iyana la kala gabanayna insha Allah aad iyo aad baa mahadsantiin